الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدونك قولها وكيل لدى حلبانada sharafta leh howlwadeennada golaha wakiilada dawladda Puntland ciidamada amniga musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marti sharafta kala duwan iyo dadweynaha sida tooska noogala socda warbaahinta madaxa bannaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin shacabka reer Puntland iyo dhammaan marti sharafta nala joogta maanta waxay ii tahay farxad weyn inaan hortiina imaado idinkoo mudanayaashii matalaya shacabka reer Puntland si aan uga horjeediyo barnaamij siyaasadeedkayga iyo codsigayga mudanayaal iyo marwooyin waxaan door muhiim ah ka soo mudanayaal iyo marwooyin si kooban waxaan rabaa inaan idinla wadaago taariikh nololeedkaygii waxaan ku dhashay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxbarashadaydii dugsiga hoose dhexe sare waxaan ku galay magaalada Garowe waxaan kuliyadii dhaqaalaha ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka galay magaalada Muqdisho waxaan kuliyadda maamulka iyo maareynta ka dhameeyay BSU mudanayaal iyo marwooyin waxaan door muhiim ah ka soo qaatay dhismihii dawladda Puntland waxaan leeyahay khibrad shaqo oo ku siman ilaa asaaskii Puntland anigoo soo qabtay xilal kala duwan sida agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda arrimaha bulshada wasaaradda caafimaadka wasaaradda xanaanaha xoolaha intii u dhaxaysay 2019 waxaan soo noqday wasiirkii maaliyadda dawladda Puntland 2019 waxaan ballanqaadkayga markhaati uga dhigayaa taariikhda shaqo oo aan isleeyahay waxa u gudatay si hufan oo xilkasnimo ku jirto muddadii aan ahaa wasiirka maaliyadda waxaan ku guuleystay inaan shaqadii wasaaradda maaliyadda aan ku samayno horumar ballaaran iyadoo dakhliga dawladda kor loo qaaday 60% mushaharkii shaqaalaha iyo ciidamada la kordhiyay la unkay xeerar cusub sidoo kale dhaqan geliyay hanaan casri ah mudanayaal iyo marwooyin waxaan halkan idinkula wadaagayaa barnaamij siyaasadeedkeeda dawladnimo waarta kaasoo ka kooban 6 hiigsi oo waaweyn oo kala ah maamul wanaagga dimuqraadiyeynta iyo arrimaha federaalka amniga iyo horumarinta ciidamada maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha arrimaha bulshada haweenka iyo dhalinyarada garsoorka cadaaladda iyo dastuurka ilaalinta deegaanka iyo isbedelada cimilada mudanayaal iyo marwooyin annagoo ka duulayna xogogaalnimada waxaan halkan idinkula wadaagaynaa qorshayaasha kala duwan ee maamul wanaagga waxaan kala madax bannayn doonaa hay'adaha dawladda sida baarlamaanka fulinta iyo garsoorka si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka Puntland waxaan tayeyn doonaa hay'adaha dawladda iyo wada shaqayntooda waxaan samayn doonaa barnaamij gaar oo lagu horumarinayo deegaanada fogfog ee aan adeegga bulshadu iyo kuwa dawladdu gaarin turxaan bixinta iyo sii wadidda hannaanka dimuqraadiyadda Puntland annagoo u marayna hannaan heshiis lagu yahay waxaan mudnaanta siin doonaa adkaynta midnimada wadajirka iyo difaaca deegaanka Puntland waxaan qaban doonaa shirweyne qaran oo looga wada tashanayo arrimaha khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo Puntland waxaan weelayn doonaa aragtida talooyinka iyo go'aamada ay wadajir u gaaraan dhammaan shaweynta Puntland dhismaha xarunta baarlamaanka leeyahay oo loo dhisay si casri ah taasoo baarlamaanka shaqadooda ku fushan doonaan waxaan awood siin doonaa baarlamaanka waxaan kor u qaadi doonaa mushaharkooda waxaan samayn doonaa sanduuqa caafimaadka xildhibaanada qodobka labaad amniga iyo dib u habaynta tayeynta ciidamada mudanayaal iyo marwooyin barnaamij siyaasadeedkaygu wuxuu mudnaan gaara siinayaa tiirka ugu muhiimsan oo ah dawlad dhiska Puntland waxay wajahaysaa khataro amni sida argagixisada hubka baahsan ee ku jira gacanta shacabka kooxaha hubeysan ee ka ganacsada maandooriyaasha haddaba dawladdu waxay xooga saari doontaa dhamaystirka dib u habaynta tayeynta iyo qalabaynta ciidamada kala duwan ee dawladda Puntland oo aan muddo ka soo shaqeeyay hagaajinta daryeelka iyo nolosha ciidamada
waxaanu ka dhigis ku samayn doonaa shacabka qoryaha ku dhex wata magaalooyinka xoojinta iyo isku xidhka wada shaqaynta qaybaha kala duwan ee ciidamada xoojinta mataanaynta iyo adkaynta wada shaqaynta ciidamada Khaatumo iyo Puntland si loo dhowro amniga midnimada dhuleed iyo difaaca Puntland iyo Khaatumo State maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha mudanayaal iyo marwooyin annagoo garowsan dhaqaale xumada baahsan ee guud ahaan Soomaaliya iyo caalamka ka jirta iyo xasooni la'aanta adduunka soo cusboonaatay maqnaashaha shilin Soomaaliga iyo siyaasad la'aanta ka jirta dhiirigelinta kobcinta dhaqaalaha dalkeena sidoo kalena kaashanayna khibradda shaqo iyo aqooneed aan u leenahay dhaqaalaha waxaan ballan qaadaynaa ku dhaqanka miisaaniyadda iyo beeqaameynta kharashka dawladda si loo bixiyo xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada iyo bixinta hawl socodsiinta dawladda ballaarinta iyo kobcinta dakhli ururinta si loo awoodo baahinta adeegyada bulshada dib hagaajinta iyo xiriirka wada shaqaynta hay'adaha beesha caalamka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xoojinta isla xisaabtanka ilaalinta ganacsiga gudaha iyo isku xirka bangiyada ganacsiga yaryar iyo dawladdu u qorsheeynayso miisaaniyadda lagu horumarinayo ganacsatada soo koraysa dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka garoomada iyo dekadaha wadooyinka aan mudnaanta siin doono waxaa ka mid ah wadada Ceeldaahir Ceeri Gaabo oo aan rabno sanadka u horeeya haddii Ilaahay inaan dhammayno wadada Garacad Goldogob wadada Kalabayr iyo Caluula wadooyinka kalena waxay ku qoran yihiin buugga arrimaha bulshada annagoo kaashanayna xogaalnimada xaaladda arrimaha bulshada ee Puntland ka jira waxaan mudnaanta gaar ah siin doonaa horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha xanaanada xoolaha beeraha dadka baahiyaha gaarka ah qaba mudanayaal iyo marwooyin dawladdu waxay dib u eegis ku samayn doontaa isla markaana kordhin doontaa qoondada miisaaniyadda loogu talagalay waxqabadka iyo horumarinta adeegyada bulshada dhammaan barnaamijyada horumarineedku wuxuu noqon doonaa kuwo ku salaysan qorshayaasha barnaamijka 5 sano ee Puntland waxaan dhisi doonaa qalabayn doonaa macadka farsamada gacanta lagu barto si ay dhalinyaradeen u helaan xirfado waxaan miisaaniyad dhaqaale u samayn doonaa dalladda dhalinyarada Puntland si ay kaalin mug leh uga qaataan arrimaha horumarinta bulshada dhismaha 3 garoon casriyeed oo laga hirgelinayo gobolada Sanaag Cayn iyo Raas Casayr si kor loogu qaado ciyaaraha isdhexgalka bulshada dhalinyarada looga ilaaliyo maandooriyaha tahriibta burcadbadeedka iyo xagjirnimada garsoorka iyo cadaaladda iyo dastuurka mudanayaal iyo marwooyin nidaamka cadaaladda Puntland waxaa ka jira codsanaan weyn waxaan ka qaban doonaa in garsoorku helo madax bannaani buuxda in loo sameeyo miisaaniyad dhaqaale oo ay ku gudan karaan waajibaadkooda in dib u eegis lagu sameeyo aqoonta xirfadda waayo aragnimada shaqaalaha garsoorka heer kasta in aqoon kororsi iyo tababarid joogto ah loo sameeyo shaqaalaha garsoorka in la dayactiro lana qalabeeyo dhammaan xafiisyada garsoorka deegaanka iyo isbeddelka cimilada si aan wada ogsoonahay deegaanka waxaa ku tiirsan xoolaha la dhabarta dhaqaalaha ee Puntland isbeddelka cimilada waxaa deegaanka Puntland ka jira dhibaatooyin ay ka mid yihiin xaaluf caraguur abaaraha iyo isbeddel cimilada oo saameyn ku yeeshay deegaanada haddaba waxaan ballan qaadaynaa inay dawladdu miisaaniyad dhaqaale u samayn doonto ilaalinta deegaanka in la samayn doono mashruuca dhiraynta dhammaan gobollada iyo degmooyinka Puntland ayna iska kaashanayaan maamulada dawladaha hoose iyo dawladdu waxaa la samayn doonaa daraasado cilmi baaris ah oo lagu ogaanayo khataraha ka dhasha isbeddelka cimilada Khaatumo waxaan qayb ka noqon doonaa dhamaystirka maamulka Khaatumo State annagoo ixtiraamayna go'aanada kala duwan ee ka soo baxay isimada Khaatumo waxaan u qoondayn doonaa dhaqaale ka muuqan doona miisaaniyadda dawladda taasoo dabooli doonta baahiyaha ciidanka iyo difaaca mushaharaadka ciidanka iyo adeegyada asaasiga ah si loo helo dawlad isku filan oo u adeegta bulshadeeda gabagabadii mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinka mahadcelinayaa dhegaysiga barnaamij siyaasadeedkayga waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina isiisaan anigoo hortiina ka ballan qaadaya inaan dhowri doono dastuurka iyo xeerarka Puntland ilaalin doono habmaamuuska xuquuqda madax bannaanida golaha wakiilada
aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.